بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaan qabanaynaa shir jaraa'id annagoo ah guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa nala jooga xubnihii qayb ka mid ah oo xogayihii guddigu ku jiro waxaan yeelanay galabtayto shir ka dhacay Dikaale oo guddoomiyaha iyo inta badan guddigu ay joogeen waxaan maaragtay ka wada hadalnay arrimaha nabadgelyada ugu muhiimsan oo aad la socotaan xogaa yar oo khilaafaad ah oo gobolka gudo laba group oo qaybna ay ka soo baxday 16 xildhibaan ceelwaaq qaybna ay ka soo baxday Garbaharey arrintaas conflict badan bay maaragtay waxay ka keentay arrimaha doorashooyinka oo tomorrow dhacaya warar xasaasi ah caawina soo gaaray oo ku saabsan bari in meeshaas dhib badan ka dhici doono annaga marka waxaan rabnaa oo galabta isla qaadanay haddana guddiga majority-ga uu joogo aan isla qaadanay in labada gruuba la hakiyo cidda ka shaqaynaysa ama ay dhisinaysa ama dhaarinaysa ama iyada waa in legal way labada gruuba waxa hawshaas iska leh guddoonka baarlamaanka oo tomorrow dooran doono waxaan rabnaa 259 ka xildhibaan 275 marka laga reebo 16 laga gooyo 259 ka soo haraysa oo bari hoolka arabna inay tagto inay safe noqoto dadkii matalaada ahaa oo Soomaaliyeed oo xildhibaanada ahaa oo golihii sharci dejinta rabnaa ma rabno khilaaf ma rabno burbur waxaan rabnaa meeshaas inaan si safe ay doorashadaasi ku dhacdo annagu ma rabno waxyaabaha caawa laga shaqaynayo annagu guddiga shaqo kuma laha guddigu ma ansixin guddigu raalli kama aha guddigu ma yeelayo mana aqbalayo bari guddigu wuxuu diyaar u yahay annaga waxaa naloo 10 xubnood baan nahay waxaa naloo igmaday inaan guddoomiyihii baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda dooranno asagaa hay-adda sharci dejinta qofkii u sarreeyay noqonaya asagaa arrimahaas iyo masiirkaas go-aan ka gaaraya cid kaloo awood u leh ma leh dhaban cad guddoomiyaheenna waa nala qabaa speaker baan soo gelinay telephone baan soo gelinay saasuu aaminsan yahay ciddii ka shaqaynaysa iyadaa og annaga laba group oo conflict iyo shaqo kuma lihin mana nihin mana naqusayaan dadka siyaasadda Soomaaliya isku haystaan shaqo kuma laha in loo soo manguriyo marka guddiga dhexdiisa maaragtay baarlamaanka bari doorashadiisu ay dhacaysana ma ahan barina saas doorasho kuma dhici karto ma rabno inaan shacabka Soomaaliyeed maaragtay problem iyo ka nixino doorashadu waa dhacaysaa laakiin waxaan rabnaa si salmiya oo nidaamsan oo nabadgelyo inay ku dhacdo koox ma soo gali karto iyadoo koox kale banaanka maqan tahay cid yeelaysana ma jirto cid sharciyay kartana ma jirto shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha